بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والمستعان على امر الدنيا والدين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاولت هذه الآية كلها تقرأ إذا رجع إلى مامك مسجدك يمكن الموقف له إذا ما أنت هاوشا كهذا دعوة كنتي إلى كامزة إن وجهته إلى سبحانه وتعالى جزاك حسنات هوسا معها حضورك على مرة 4 دقائق. أنا أحب كلمة كسر فتحي هو المال بإذن الله بصراحة بعض والدة أنا شفت بعض الثاني ما شاء الله والدة والدة أولادهم بدين ما شاء الله مهم من يبقى أنت قدرت أركع iyagoo barbaarin laga hadlaya la arko dhammaan waxaa kusoo degdegaa in wax badan inaga khaldamen oo nolosha guriga hore aada u wanaagsan laakiin hadda wax badan inaga khaldamen in barbaarinta laga hadlayo macnaheedu kama dhigna in nolosheeda sii xumaatay in nolosheeda sidii hore ay ka xumaatay macnaheedu kama dhigna waxay ka dhigan tahay in waktigii zamankii iyo makaankii joogay uu isbedelay noloshuna mar kasta oo zamanka iyo makaanka aad joogta isbedeshaa wax badan baa isbedela wax badanoo dadku ay yaqaaniin ayaa meesha ka baxa aqoon cusub iyo baahiyo cusub iyo mashaakil cusub baa soo adhesha qofka hadduu isla bedeli waayo isbedelkaa dhacaya iyo waktiga iyo makaanka isbedelay waxay u badnaanaysaa in uu noqon waayo qof la falgeli karaya fahmi karaya u dulqaadan karaya hada mashaakisha waktigaa jirta ayada midba barbaarintu waa aqoon xiliyeed ma aha aqoon xilli walba taagan hadda aqoon waxay isla bedeshaa barbaarinta aqoon waxay isla bedeshaa hada wadniga iyo waaqaca iyo waktiga la joogo sidaa daraaddeed baa aqoonteedu naqaanay waalidku inta badan dhowrkii sano ugu dambeysay sano ugu dambeysay arrimaha barbaarintiiyo waadiiqa xidhiidhan aada uga hadlay waxaan xasuustaa hooyooyinka iyo dadka kheyrlaas ee ugu badan inta badan tababarada iyo arrimaha qaata dumar baa u badan tala oran jireen oo ilma anigu lagaa leeyahay barbaarin baan hadda qaadanaya ama dee barbaarintuusa waxay naqaanin baa hooya lagu soo koriyey fariilaa laxad muddadaa kadib waxaa hadda aada u soo badanaya dadka waaweyn ka u badan aadkii la soo xiriiro waaweyn iyo ardayaal waaweyn iyo arrimahan ka hadla marka waanta xitaa siduu isku bedelaya dareemaysa dadada maanta halka inay fahamsanayn muhiimadda barbaarintu ay leedahay iyo aqoonta iyo xirfadda in la yeesho sababta keenta aanu ku baraarugsan laga yaaba inay duruuf aada u badan ay ku jiraan oo wax badan oo hareerada ka jira isbedelay laakiin weli inuu baahan yahay oo waxan specific skillska u baahan yahay inuu badan ku baraarugsan baa dhacda dabeetana qofku inuu midaadsan waxaan u jeedaa marka barbaarintu waa aqoon xiliyeed cali ibn abi talib radiallahu canhu wuxuu oran jiray ubadkiina ku barbaariya waktiga ay nool yihiin ha u barbaarina sidii idinka laydin soo barbaariyey waayo fa inahum khuluquu lizamanin gayri zamanin waxaa loo abuuray waktigii ka duwan waxay la nool yihiin ay la tacaalayaan mashaakisha idinkoo ay la tacaalaysay kadib bilaahi calaykum intiini soo barbaartay sagaashameeyadii dadkii soo barbaartay ku jiraan mare intii sagaashameeyadii iyo 2000 bilowgiisii soo barbaaray imse wax baa nolosha iska dhigay imse waxoo inagu aan dib inagu hayn waalidkeen aan inooga baqin ayay maanta la tacaalayaan caruurteeda waalidku dada fahansan yihiin fahmi kari laayeen
نوش وين مالتي مشاكل شو مالتي عربيانو دلاليانا واحد يقول فلان بقول على كسر دلاليانا هاي مع فلان مشاكل سيري الرسول لو كان سهم واحد يتقيد عشان ورا كبير ده عامل وكشف كم يقول لكن الدليل وبلا دليل وبصدحات دليل وجهود كل دليل معنى الكلمة يعني أول كلمة تصل بشكل باقوها ليس ومعي كلمة بالإيمانية أتوقع ليس المعنى الصوم ليس ودليل الإعلان يكون الله الحاكم صوم الله المفروض ما هو يعني كشيء كلمة صوم الله وحصل مثل التعالي كون هذا فكرنا سيدي أنا اللي يسوي بالبالية وأنا أعطاه سلاشة بيت وأتيجي مصاب بالبالية هذا فيلم اللي حاط سيدا أساسي حاطس أنت عيب مقدس صبر لك علم لما طلع طلع بليد اللي يكون بالبالية وقت يجي هو بالبالية سيدي كلمة يسوي بالبالية وهذا ما تبع المهم بين النص والنساء والفاسد يسبب بالعين يقولون هو بالبالية اللي قاعد يسوي والتقليد أنا عن رباء ويوم بحي صوب البارسي سيدي وليد صوب البارسي أنا عن رباء إنه يوم البارسي ده اللي صوب البارسي إنه يحاول يعبر يقول يوم يعرف إنه يوم البارسي ده اللي أنا صوب البارسي تقليد ما شغالش أنا حدي البارسي وأقول حليات نبغى نبي حاسس إنه كلام بيسا رسول حاكي كل كذا حاجة تبقى شايسة كسر كل حد قاعد صاحب كلام حاجة تبغى شايسة ولا سمع يتيجي وحنا كتير وين ولا سمع مبارك أنا تبغى ولا كتير وين بس قاسم بس وما نحكي أتبغى كل هذا بحس تأسف جت بيرجع أتبغى هاي يتيجي هاي كل ما كنت بس حد حاجة تبغى يجي ولا أنا هاي بس قاسم بس وما نحكي بس يقول لك أيه يا ناس أيه يا بنتي كسر كده أيه عاد كلامك حاجة بقى وجهي جتي كسر هتيجي أيه حسب سبيتي وين مفرد نايس ودام وين مفرد نايس كم قدر بقى وفيدي كده راح يخص بناتنا حاجة ما كتشف لكن قبل هاي الشيء اللي اسمه ويندي هو وين مفرد بيه نايس أو هو بقى نايس تعال أو سلطي أو كلامك حاجة ما كتشف قبل الكلام اسمه ويندي بمعنى الكلمة واحد وجه على بالبارة الوسيلة والتقليد كمان بالبارة كأنه بهذا ما تعلمون والله ولا يوسف الدنيا كمان بالبارة كأنه قلت كذا سيدي اللي يوسف الدنيا وما بالبارة كأنه وكأنه ما هي بالبارة بارة سبب الموضوع وحق على واحد هذا وقت كان قبل كل بتشوفه قارها مبارك كان تجيها مشاكل شيء تعالى سكوان هذا شيء تعالى أنا معي شيء عظيم الله تعالى يقول زاكي شيء تعالى سكوان يقول تعالى لو هو قدر ذلك عرفته سواء شفتها وش بشكل لو هذا بيدري ممكن يجمعه يوصل حيانا عن صح وسه الري سبحان الله يجي وحنا كنسعد يوم ما كي يجمعنا ماله قاعد دقي وصلوا عايز يلقي تمام وكان ماله إنه عن هذا شغل كان بكرة في السيتي لكن ما له عاطل وقاعد يقول قولي ودك ما تحتوي كذا بحال سيستم كمان بطل يعني كل يوم ما بطل أو تبغى أي كلاس سيستم كذا مش هيك فرضا ما بدو كيس ولا تعالى مكان هو بهذا يكون والله يكون هو بالبارك كذا فعال من أوقات وبعدين لما بفرق كذا يشوفوه واقع يقول كذا سيدي يقول هو بالبارك حدينا كبر بهذا يكون هو على هذا كان يشتغل يجي ما يقولي هذه مشكلة تبريد تعالى يورا ساعات ما يسمعها لأن سكب بس لأن دخلها يسمعها حل كنت اليوم شنطة الغوكة كنت نسقط الغوكة بدي يحكوا لي إنها مشكلة بحكي مشكلة حتى أي كتير يكون على وسطها يدل أيامكم بحالها دخلت يسوع عن الحاجة ممكن لها هل وجهنا وبحال على والدك قلبات الكبرى هذا المنطق وما تلاقي حتى إذا نقطه وهذا أساليب فضلية حرفية إذا تدور يد طرق يحاول وحتون كتير منها ولا كل بهاي ما مشاكل وبديس رسول بسا إنه كحل من كان مشاكل كدولة فهم
waxaan ugu talagalay dhahdaa yani haddii waalidka Soomaaliga ee galbeedka ku nool looga gaarto riyoota dalka baad ku dhashay waxaad ku nooshahay aan la biyo ahayn la dhaqan ahayn la mabaadi ahayn la qiyam ahayn la adduun ahayn uma tabanaaas ku babaaya in looga gaarto riyoota horta adigu labada lugood midna dhulkii iyo yahay midna halkan taabo horta baa soo soo halka labada lugood soo kay aqliyi waxay ku kibin joogaa dib baa loo noqonayaa qofan badiyay maalin uu jeex qaba wax badan ma ka qabo إنه روح الرياضة بيساوكي ودخلت بوضع كده على مركز السعودية شكرا رجل كشي كيسي وصبر على يعني واقع على كرامي وقول مكان سياحة على يوم عرض ما كرامي سبب إثناء كامس عيد لما أنا قلبا ما يخلو عيد لما عطوا درسين يتكلم صوت لما عطوا درس شكرا لكم وطلب شيء ما نعكس هنقول شيء قاعدة على والدكم حد شغال أقوى لك العادة وضدك على بعض المعارض كحظة شغال أقوى لك وطالع وضدك عادة تكون يومين ستكون إنه تصورها هكذا بعض كل عليه سيدي فكري وقت تصورها دم مركز يبقى يسوى ما تقول هذا كشك يسوى سيدي يعني أول كوبر بعد النهاية هذا من الواحد من كفاية الله وطن الأولاد وعي ويشان أولاد ويشان هكذا يكون لي مركا أولي فعال مكايا مركا أولي وحي أباهي يبنى لا تكايا وعلى تدبر يوم عدد الله والآن يبنى صوت الله واضح هذا المشاهيش آب لو دريسينا ولو كنت كحيل تبني جد جد يبنى بذلك جمع استحانا حاجة مجد وكعمل كده marka ugu horeysa cunadii ku baraarujinaya meesha aad joogto iyo waaqica aad ku nooshahay iyo duruuftii waxay isbedel marka u baad ogaan karaysaa baahi inaad qabto marka u baad ogaan karaysaa waxa aad u baahan tahay marka u baad asleeyahay ubadkana wax badan baa loo qaban karaya marka wadcigii iyo waqtigii u isbedelay qofkuna haddii aanu isagoo jarmalka jooga ama swiiska ku nool ama maraykanku nool uu u fakerayo uu doonayo miisa inuu barbaariyo sidii markii uu burco iyo boosaaso iyo kuwaaweeye baydhabo u joogay wax shaqaynayo maaha adaba dad qod baa jeclahay inta saacadeeda ka dhiman waqtigeeda ka dhimana insha allah aan isla tataabano oo aan markii waqti muxaadaraad isleeya kamida inaan jeediya ugu soo talagalay محل ما يبي يبعي أسؤال يبي يعني إسماعيل كجواب كريتو عسل يبي ما بدو كان يبعي ما بدو كان يبعي واحد مستوى أساسي سي سبيسيفيك السؤال الأساسي الجواب الأساسي خلاص حسي سبيسيفيك حسب اللي يبعي وقتي الوقت الواحد بصراحة هذا الجواب في العقل دي سنة جواب في العقل هذا زين لا لا تبدوني يا من فتاة الدنيا أرجع ما شاء الله ما يراش الحكاية أي ما مش مكانه كمان أبدا خلاص كتاب ولا بس تقول ما مش ماشي تخصص خلاص بكره بكره انا بطلع والله صحيح تعلم اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله بعد ما هو عيسى أعطاه بالله بعد ما هو عيسى المباني اللي زي الفهم المباني قالوا المعنى ما هم كيس وحنا قالوا كيس مش هنمشي له تعالى ولا فهم كيس المعنى وحا ويسا مسكحنيسا اسكول الحلمية وانت صوتي اليوم وكل شخص صنعينيا إنك بدأ سيديتي بيجيب وحوال قوات سيديتي سيصامين بكل نفسها هذا ما هو صامين بكل يوانيا أمس ما هو صامين بكل يوانيا إلا فهمته وآل البيوتا وكان بدأي من الذي يكردوني وتقال قرائكم انت بدأ عنه قال تبقى يواجهك كم قال لكن سيكواجهك اللي يكردوني بيقول لك يدون
dabcigoodaa kala duwan heerarka da'doodii mid walba tarbiyada ku habboon baa kala duwan waxaa kala duwan intelligencekoodii sidii looga fahmaa baa kala duwan horta qaar baa si fudud loo u fahmi karaya uba u xifdiyi karana idhaha laakiin waxaa jira mararka qaarkood inuu isagoo si fudud quraanka u xifdiyi karaya ayaa haddana u badan tahay mararka qaarkood inuu si fudud u ilaawi karo waxaa jira ilmaha qaar waxbarashada ay ku adag tahay laakiin waxay qabtaan asiidii ilmaha marka habkan wax u bataan kala duwan intelligencekoodaa kala duwan mid baa xisaabta ku wanaagsan mid baa quraanka ku wanaagsanaanaya mid baa biology ku wanaagsanaanaya mid baa culumta kale ku wanaagsan baahida way kala duwan tahay ilaah subxaana watacaala dowladka ugu taageeray noloshii kownka iyo qof walba gacanta uu ku leeyahay inuu ka buuxiyo ayay u kala duwan yihiin waxay u kala duwan yihiin cilaaqada saa ku sameyn lahay luqaadkooda jacaylka kala duwan goobtii carruurtina luqa jacayl leeyihiin yaa manu qoray luqaadka jacaylka carruurta luqaadka jacaylka ee dadka weynayaa qoray carruurta luqa jacayl leeyihiin qaar waxaa jacaylka markaa leeyahay luqa jacayl maxaa loo jeedaa sida biniaadam qofka Chinese ku hadlaya iyo qofka af German ka yaqaan Chinese ka qof Chinese ku hadlaya ma fahmi luqada jacaylka dib looga qoray jir hal hada dowlad fahmi language scientific ma laakiin mudabeel baa intaasay mudabeel baa loo fiirsan ka badan waxa malaynaya konton qodob ayuu ku tarjumay inta markuu ugu horeysay waxaa loogu talagalay laba qof isxaba iyo labaana loogu talagalay laakiin wuxuu ogaaday quraanka in xitaa carruurtii ay cilaaqada leedahay ilmaha qaar baa physical touch noqon kooda wuxuu leeyahay qof waliba qalbigiisa waxaa ku jira taagi soomaalida shidaal lagu jiro meel lagu shubo soo malaha bangiyaal kaalin baa leeyihin bangiyaal leeyihin bangiga waxbaa lagu shubo waxaa kugu jira markaa soo bixi karaysaa qof wal oo xiriir kula nolosha qalbigiisa bangi baad ku leedahay bangiga wax buuxiyaa jira tilmaam uu leeyahay marka boqolkii 80 shan luqadood baa jira shantan luqadood waxaa jira qof walba wax primary wax asaasi ah luqad secondary uu yeeshaa dhici karaysa oo xigaa laakiin mid baa ah primary mid baa waa taa primary wuxuu leeyahay waxay buuxinaysaa taabigiisa boqolkii 80 baahidii caafimaadkii jacayl u qabay ayay buuxinaysaa shan arrimo luqadood tilmaamaya qof wuxuu leeyahay qofna baahidiisa waxaa buuxisa boqolkii 80 waxaa buuxisa ereyga amaanta ayaa buuxisa oo marka haddaad hadiyad u karto luqadisa primary marka ay tahay in amaanta iyo niyadgelinta ay luqadiisa primary ay tahay gifti waxa uma tahay physical touch waxa uma tahay hataa loo carab gift in hadiyad la siiyo talabaad waxa weeye ereyga wanaagsan ee niyadgelinta ee amaanta ah saddexaad waxa weeye service in qofka wax loo qabto la caawiyo tashanaad waxa weeye physical touch oo ilmaha qaarkood waxay u baahan yihiin ilmaha physical touch luqadiisu ay tahay waxaa baahan inaad ciyaarto inaad la dagalato inaad fiirsato macaan ilmihiina qaar waxay jecel inaad la ciyaarto la dagalato naftaada kusoo fadhiisanaya maantooda agtaadu kaa dhiibay baahidiisa waxay tahay baahidiisa luqadiisa jacaylna waxay tahay primary-ga ee jacaylka ugu dareemo ayaa waxay tahay marka uu jidhkiigu istaagto ilmaha qaar baa dumarku way leeyihiin raggu way leeyihiin qof walba luqad primary leeyihiin dumarka oo kale dhanba xaaskayga tusaale luqadeeda primary-ga waxa weeye waa service si kastoo guriga u joogo waxaa laga yaabaa si kastoo hadiyad ugu keeno maalintaa subaxa qashinka sii qaado waxba biyad dumarka qaar baa hadiyadda primary language-koodu leeyihi laakiin eeg halka shaqa ku jirta marka waxaan u tilmaamaya hooy ogaal bay u baahan tahay inaad ogaatid ilmaaga luqadiisa jacaylka halka ku jiro halka uu daarayo waqti badan buu baahan inaad geyso waxaan u jeedaa baahiyo ilmuhu faham buu baahan inaad fahatid luqaadkiisa luqada jacaylkooda kala duwan bay nidhi habka waxu bartaa kala duwan habka u fikiraan baa kala duwan habka cilaaqadaada ugu dhisaysaa kala duwan arrimahaasoo dhan baa kala duwan haddaadan ilmahaaga aadan fahmin oo aadan la fadhiisan oo aadan u fiirfiirsan waxaa dhici karaysa wax badan oo la tacaali inaadan ka caawin karin
macallimiintu si fiican loo garanayaa ilmaha siday wax u kala bartaan mid waliba ma jira ilma damiina inagu dhulkeenu dawlad waxaa ma jira ilma damiina iyo ilma waxaa jira fahamkiisu fiican yahay ma jiro waa ilaahay qof damiina ma abuurin qof walba laakiin si uu wax ku bartaa jira fahmi kaga baahda inagu markaynu gabnay aqoontii aynu ilmaha ku fahmi lahay magacyada u kala sameyn laakiin caalamkan haddaynu joogno ilma damiina ma jiro qof walba waxaa jira xilli wax ku barto iyo muddo wax ku barto iyo hab wax ku barto iyo asaliin wax ku barto marka ilmuhu wuxuu baahay kow in la fahmo habka wax u bartaa maanta in la fahamto waxay ku wanaagsanaya si aad u diyaariso ilmu wanaag signals bay bixiyaan isagoo yar buu ku sheegaya inuu hogaamiye noqon karayo inuu ganacsado noqon karayo inuu macallin noqon karayo signals buu ku siinaya jidkaa markaad marayso daa daqiiqa rabta meel ka baxaya signal buu ku siinaya ku sheegaya rabbigu waxaan dad lamida ku jiro dad jidkaad kusii socoto doonaysa inaad masaajidka kusoo noqotad xaafadda usii socoto ood aragto waddada soo socota inay traafiku buuxo signal buu ku diraya macnaheedu yahay jidka taa kusoo dhaafo haddaad degdegsanta jidkala soo mara waa jidka wada buuxaa waxaa loo jeedaa ilmuhu iyagoo yar bay xitaa signals ku diraya waxa ay mustaqbalka noqon karayaan haddana ummadaan aynu la noolnahay maadaama ay wax badan aqoonta darseed aad u fiirsadeen ubadkooda waxay kusii tababaraan isagoo yar baa meeshuu aadi lahaa oo usii tababaraya xirfado u baahnaba isagoo yar ayuu baranaya ilmeheedu wiil markaa lama jaan qaadi karayo waxbadan uu ka horeeya noqonaysaa marka faham waa baahida ugu horeysa ee ilmeheedu ay leeyihiin ay tahay inay fahmo baahida labaad ubadkeedu leeyihin waxa weeye in waalidku hooyadii aabihii wuxuu jeclaa waa inay aqoon yeeshaan oo barbaarinta aqoon yeeshaan waxaan haddaynu ka sheekeynayno aqoon bay u baahanta iskama imanayso guryada laguma soo barin iskuullada laguma soo barin biyadaynu ka nimi inama soo barin aqoon bay u baahanta inta badan ilmahaynu inagu weynu korinaa ma barbaarin barbaarinta iyo korinta farqiga u dhexeeya hal malaysa farqiga u dhexeeya hasleedii barbaarinta iyo korintu way ku kala duwan barbaarinta iyo korintu hal malaysa ay kala duwan إن فيش كليب على الوقت barbaarintu iyo korintu waxay kala duwan yihiin korintu inta adhow inta badan baa loo korina korintu qofku bay korisaa jirka iyo macalka si kala daba dhigo jirkay korisaa laakiin barbaarintu waxay barbaarisaa qof bay samaysaa ilmaha haddaad maanta aad tidhaahdo dad u fiirsataan cud seexo in caafimaadkiisa laga wado habeenkii casho la siiyo boosay maaragtay cadayo la yidhaahdo sariirta la geeyo seexdo subaxii maaragtay lasoo kiciyo cadayo la yidhaahdo cunno yar la siiyo carabada loo xiro boosay yar dhabarka loo saaro iskuulka lagu sii tuuro sidii daykeerkii intaa waa la qaban karaya intaa waa la qaban karaya soo qofaad shaqaalaysiisay waa ku qaban karaya adigu muhiimadaada waalidku aabbayo hooyada mansiladan aabanimada iyo hooyanimada markuu bilaah subxana watacaala ka warramay in isaga la adeeco nabigiisana la adeeco iyo ambiyadiisa sababta saddexaad mar walbaad inuu ugu xijinayo hooyanimada iyo aabanimada aad mansilada yowm alqiyaama ilaah subxana watacaala haddaad wanaag samayso uu jannada kor ugu qaada adigoo qabriga ku jira mansilada kor loo qaaday maxay tahay way ka weytahay in ilmaada cunno iyo cabitaan iyo calalaad u xidho caafimaadkiisa ku inta waa lagu qaban karay barbaarintu marka korintu waxay samaysaa qolofkay korisaa laakiin barbaarintada u fiirsataan sida aan ilmaha waalidku soomaalida u fiirsato 80% waxaad arkaysaa in koriyata oo ilmaha intaa lagu koriyo hadda markuu soo yaro weynaado meelaha qaar mararka lagula xisaabtamo inuu yidhahdo intaas adaa intaas kusoo leekeysi waa kuusoo shaqeynaya aabamay hadda intaa ka badan baan u baahna inaad ila ciyaartaan aan u baahna inaad ila sheekaysataan u baahna inaad ifahantaan u baahna nabilahi yuusuf calayhi salaam markuu aabihii markuu riyooday aabihii wuu la imanaya maanta wiilka gurigii hooyadii aabihii ula imanaya riyooyinka ay leeyihiin iyagu kas halkan usoo barbaarinaya barbaarintu dhowr nooc bay leedahay istaale kala duwan bay leedahay najeeda u baahan in la barto adigu istaalkee tahay si xitaa adiga iyo xaaskaaga aad iskaga caawisaa wuu iman doona insha allah laakiin in ilmaha la barbaariyo waxay u baahan tahay jawaanib sharci laga barbaariyo laga kobciyaa idhaha jaanib waa isla wada naqaana waa ka jirka inta badan waa isla naqaana cunida cabida caafimaadkiisa laga wado meel wanaagsan la seexiyo waa aad bay intaas aad loo naqaana arrinta labaad ee u baahan in ilmaha laga kobciyo waxa weye jaanibka labaad ilmaha laga kobciyo barbaarinta ku dhamaystirmayso
حوي إن قرأها لكم إيه قرأها لكم إيه هذا وجهنا سيدا الله شو فهم هذا يا الله شكيس شغل الله ما هذا شكيس الله هذا سيدا الله شو فهمها تجارب فرضنا ما تصمته أنت من الماء قرآن ما نسيبه قرآن وشيء ما كيحاول جد ما كنت تدبكم ما كنت خارقهم آيات الله الله كان وشيء لكن waalidku isku dayay isagoo keligii fadhiya inuu ilmihiisa intuu kaxeeyo uu hoga tusaaleeyo wahawaala waramo nolosha iyo duruufiyi iyo waaqi uu kusoo galaa wax badan maarata god fara badan uu soo maray inuu uga sheekeeyo inta badan ma dhacdo marka uu ilmuhu waxbarashada kusoo yara waxismuunbaa laga yaaba waalidku dhaco marka ilmuhu sunanta nolosha iyo nolosha iyo qawaaciddeeda inaad uga sheekeyso waxyaabaha ugu dhisa waxaa ka mid a qiyamkiisa inaad qiimaad ku beerto qiimaha salaada qiimaha waxbarashada qiimaha runsheega qiimaha cadaaladda qiimaha nadaafadda waxa inta badan ilmaha ayaa kula dagaalmo qiimaha waqti waxaana kula dagaalmaa inta badan waxa weeye waa qiyam aan ku iman xilliga ay qalad galaan in loo sheego laakiin waxay ku timaadaa xilliga aan dhib aanay jirin ama hawl aanay jirin inaad kala sheekaysato ood ku beerto qiyamka aad ku beerto aad bay tusaalayaal fara badan sunada haddaad eegtaan nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo caadiya oo saxaabada la socda ayuu dhalinyarada u sheegi jiray uu oran jiray waxa iyo waxa iyo waxa iyo waxa sameey waxaa loo baahan yahay inaad sunada uga sheekayso hasara aad ku beerto ihtimaabaadkiisa iyo interestigiisa aad saxdid qudwaad wanaagsan aad u samayso cidda qudwada u noqonaysa adigaa ku axkaam ugu tusaalaysa uga sheekayso مفاهيمتيسا نوشا يصير نوشا واقعي إلى تحت جانبك صدحات وباهي ما إلا ما برباريو وحاول جانبك روحي لا وانتي آدك وحيوها كوالها آدك ووليتو وجانبك روحي لا آدك ما متسكيه مدرنا وراك على صاحب السياء لكن إناف ما نو حاول ما دري أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها intaasoo dugsi baad arkaysaa oo qur-aanka lagu xifdiyo laakiin ma arkaysid hal meel oo keliya tadabburka qofka lagu baahay ilmahan cajab carab maaha waa cajab ma fahmi karin halba ilmaha maanta gabay haddaad xifdisiiso soomaaliya ilmaha soomaaliga welidiisa ina anfacdo wiilka yaga carabkaa sidoo kale qur-aanka maanta haddaad xifdisiiso wax badan buu ka anfacaya hadii khalawaadka ducaadeeda khayr laasiiyo ha weyn bay qabtay waxyaabaha khalaadkan caa waxaa ka mid ah in caruurtii wiilkiiraa gabadhiira soomaalida loo arko lagu eego inta sidii ilma caraba inuu yahay quraanka waa la xifdisiiya waa wax shaqo aad u wanaagsan weeyaan runtii waxaad u wanaagsan weeyaan laakiin inaaf maaha waxay u baahan in ilmahan cilaaqada rabbigiisa weliba waqtiga maanta nool lahay waxaan idhahdaa ilmaha maanta waqtiga la barbaarinayo kuma filla in ilmo wanaagsan keliya la barbaariyo ilmo ducaada la barbaariyo وهذا فرض ما صار سمع دوتينا أنت أجلس يو أنتي أقارك أنت وحق السما قرارات الفيسبوك ياف ما تبعها من كوي كوي أفكار ترجش كيستو كنت تو وافصبان يتخانق أو قريسة أو بلاغة عجيبة تاعي يبغى كم ذلك مسكوتة ما طلع بالبارين اليوم كمفي لأن ما عادية أو سكسس عادية أو تكون كمفي عقلة قرارات حب سكير كمفي يبغى عالم ولا بالبارين شو بس خير ما سيبي ولينا بالبيت كتشوفه كل اللي بحق ضمار انك اقوى يعني اذا من حق خير وحق نصر انه حبيب يعني مرة انت يسوي ورا وصون قولها يسوي مقرا قفها السيده ودعوه كبيره سيء بالباب اللي ما لك لبرو الى قدر ربيكيسا هي اسال الاسبوع حلو وجاب كم من البارين تكون امي مساله امي مساله اللي ما ربيكيسا لبرو ولا شيء يصير بسيط بقى ايا لو ربك يعني إلا هو حقاركم من أنك رب سبحانه وتعالى وسيم أمور بكاسة مركب وحقوق البلع عالي إلى تلال عربك لا يقول لمن سيران وسيدة دولة عربك هاي مركب وحقوق البلع كعطة كل مرة إلى تلال ذلك عوى هاي كوام مركب بيلقي سبليكيشن أو كحسينات وسوسات دعوة يا عندنا أنا وحقوق عربك يسقون إلى سبحانه وتعالى وسيم ربي يسابق حلو أسماء الحسنى للطاق هذا ما ربي للطاق إن ربي لجعل يسير وما تبغى نوقع عبس قلنا الله ربي يوقع عبس قلنا إما رجع يسير شيخ سلمان العوضة دكتور بالله سبحانه وتعالى حسين السوداني يقول لي
dhalinyaro meel tababar ku bixinayo dhalinyarada waxaan weydiiyey rabbi marka ilaah subxaana watacaala uu ku soo dhacda xasuusta maxaa ugu soo dhaca boqolkii 90 waxay tilmaameen cabsida bas cabsidu waa waxa wanaagsan weyn laakiin in ilmaha jeclaysiiyo meelaha ilmaha dadka loo jeclaysiin karayo rabbi cilaaqada lagu dhisi karayo waxaa ka mid ah in calaamada rabbi subxaana watacaala lagu rabo nimcooyinka uu haystana in rabbi subxaana watacaala uu siiyey asmaa'ul husnaa iyo xifdisiiyo meelaha ugu wanaagsan khayraas iyo shacbi sida aad arrimaha ugu warama in aad u dhegeysto oo ilmaha la baro waa jaanib weyn weeyaan waayo kaliya maaha in maanta waqti aad u badan nool nahay oo wax badan isbedela oo diintii weerar lagu yahay kaliya inay dhacaysa maaha laakiin muxuu yahay maaha haddii aad wax kasta barto maanta Harvard iyo Yale University ka soo baxo iyo Cambridge ka soo baxo laakiin aad cilaaqada badan lahayd oo siladaa aanay jirin wax macno badan ay sameeyaan marka jaanibka aad bay iyaduna muhiim u tahay jaanibka saddexaad jaanibka afraad weey المهارات ما حفظها عندنا والله يقولي واحد كل شيء ضل حفظه في رمضان أو هارد سكيلز كأد عام واحد سكيلز كهارد سكيلز كهو نحسبه كل هذا هو متع لكن سوفت سكيلز شدوا وقت يسأل معنا لها شدوا يسكن يدعمون لها شدوا محضران لها كزويد شدوا بيسي لها علاقات كيسي كوميونيكيشن شدوا بيسي لها شدوا مراقبات نفسه صبي العصير في أول مقلها وقلال يفضل بهجنا ومهمة هو أجل بأنه كل ينبيه كعبور كأكا أنت هاي إنه برضو ويبرشده لو حينفع عيسى إنه كسوني يسقط مخاطر لكن في عيسى كل أجله ويغانو باسكتبول كان ديما شاب باسكتبول ولا عيانو يغانو سيدو الله باشا يغانو فردا سيدو الله فولو يغانو سيدو مبارتين وقت يسقط مالي لها يغانو سيدو حولي دام الله يغانو كوني كهو برضو حفظي يرو حد سكيلس على برو حتى كسوني بمدرين قف عالي بقوكايا marka in skillska iyo xirfadaha la baro aad muhiim u tahay arinta shaqada kusoo gabagabeynaya qaybta barbaarinta aan dhameystirnay waxa weeye ilmaha cilaaqaadkiisa iyo diintiisa hawaadifta iyo lahawiyaadka in la xoojiyo ilmaha xil waxay noolahay ilmuhu ay addicted ku yihiin social media telefoona ay haystaan computer ay haystaan weli waxa weeye in badan ka mid ah xanuuno psychological oo fara badan dhalinyarada iyo jiilka maanta jooga ay la soo darsayaan marka siduu dareemadiisa iyo laxawiyadiisa u fahmi lahaa caqdiisa oo ka timaado u fahmi lahaa u maareyn kari lahaa bugaa jira yiraahdo emotional intelligence waxaan ogaaday intelligence-ka caadiga biniaadamku berigii hore ay yaqaaneen wuxuu ahaa kan caadiga IQ waxaan ogaaday inuu yahay qofka aqoon kasbashadiisa inuu aqoon kasban karayo mashaakil la xalili karayo inay ka caawinayso والمعنى الكلمة إنه جامعات أصلا بيحكي لكن هو شيء مقف فعال غوكري هدف كلا سبحانه وتعالى إنه أبو ري أمارتين إنه مسؤول كنا قلنا كم عمر الله ضد حكوسه كردية قلنا وحلو قال لي emotional intelligence أي عقلوي لا لا حلو قال لي بقول كي سيدات تقف إنه نلاش successful نخلق وهيك جارو إنه كعاون يسوع emotional intelligence إن كان بدم أنت كعاون يسوع وحلو قالوا أي شيء عادي waxaan ku jeedaa in ilmaha baro siduu dadka ula dhaqmi lahaa dadka ula macaamili lahaa hadduu khaldamo siduu qaladkiisa uga noqon lahaa haddii lagu xadgudbo siduu qofka maaragtay sida lagu xadgudbay iskala hadli lahaa qofka ula hadli lahaa siduu saaxiibo u samaysan lahaa arrimahaas oo dhan meel iskama yimaadaan iskama yimaadaan iskuulada lagu barto innagaa mas-uuliyadiina saaran إمام الله شيء كيستو صاحب لطه وحاسو باباي كاسان كي جبين فويدي ويلكي سير بروفايد وشارو يدارو صاحب هذا ولا يشتري إنه واحد ولا يعني لما يرى كل عين قال لما ديراه هذا كي دبل السيجار يقول هذا مرة لما دروس كون قبل كريم اسمه دين عتان هذا كان واحد ولا كودي من نفتي لما طول هذا كي شغال دورة دافع مرة يعني متصيرة إن لفتين ilma inta badan uu leeyahay maxaad kaliya la saaxiibtay iyo maxaad la ku hebel la saaxiib weey iyo maxaad dadka ku dhex jirtaa xataa aqoon ka war anaad sheegin sidii ula dhaqmi lahaa idan caalamkan maaragtay cawaadifta iyo cilaaqaadka waa jaanib muhiima oo ilmaha u baahan in la koriyo la'aanteedna aanay dhamaystir bikarin barbaarinteena aan dhamaystir shaqadaas oo dhan baa iman tahay ma idinku baqdi gelinayo hawsha idinkuma badinayo لكن إلى إمارتي
kurinta yar ma aha waxayno aynanu arag inay inaga kafeynayso shaqadii weyneed rabbi subxaana watacaala inoo idmaday ee mas-uuliyadda ubadka uu inoo saaray baahida kale inuu leeyahy waxa weeye guri xasiloon ay ku noolaadaan mid ka mid ilaah subxaana watacaala ahdaafta uu ka lahaa inuu hooyo iyo aabbo ilmahan ka dhaliyo waxa weeye uu ka soo saaro inuu helo ilmahan biyo xasiloon uu ku barbaari karay qofku insaan ma noqo haddii aan guri insaaninimada ay taalo nolosha iyo fahamka wanaagsan isfahamka ku yaallo haddana guri noocaas aan ku barbaarin dugaag waxa kama duwanaayo ilmuhu wuxuu baahan inuu helo guri xasiloon hooyada ilmuhu huga iyo hooyga ugu wanaagsan uu heli karayo waa hooyo iyo aabba is ixtiraamay laga yaabaa dadka qaar inaan wada joogo furiinku waa xal ya laakiin haddii xitaa la kala tago ilmuhu wuxuu u baahan yahay hooyo iyo aabba is ixtiraamay ugu yaraan intaa ka dhaxaysa isku ixtiraamay hooyada iyo aabbu hadday fahmaan ilmahan jacaylka ay u qabaan ilmahan inuu aduu weyn yahay waxa iyaga dhex yaalla way la yaraalaysaa muhiimadda ilmahan hadduu ku weya labada qof ka dhexeeya wax farabooma iyagoo isku haya wiilaawe laakiin inta badan maxaynu sameynaa ilmaha hubbaa la isaga dhigtaa idan marka ilmuhu waxyaabaha baahida weyn u qabo waxa weye guri xasiloon uu kasoo baxo ilmaha iskuulada waa la wareystaa waa loo wareystaa ilmaha gurigu kasoo kacay iyo biyaada uu kasoo baxay oogadiisaa lagu kartaa habka uu waxu baranayaa laga kartaa fahamkiisaa laga kartaa sida uu dadka iskuulka ilmaha lama dhiganayo ula macaamilaa laga kartaa ciyaar lama weydiiyo idan saameyn weyn bay ilmaha ku leedahay guriga uu ku barbaaray uu kasoo baxay nooca uu yahay waalidku markaa laba aqoon baa laga baahaya dhowr aqoonood baa laga baahaya aqoonta shareecada tii ay kasoo waranay barbaarinta ku saabsan iyo sunadkiisuna aqoon isku yeesho inta badan waalidku markuu straysan yahay oo gudihiisa iyo xawaartiisu ay kacsan yihiin wax badan uma dulqaadan karay labada qof isqabaa wax badan uma dulqaadan karay xasaasiyad baa jirta oo isku dhacayaan ubadka looma dulqaadan karay waxaa laga yaabaa ilmaha yar khalad uu sameynaya shalay oo aad caadi ku ahayd in maanta marka aad gudahaada uu kacsan yahay aad maanta ku garaato maxay bedel wax kala soo bedel ilmaha khaladka shalay uu sameeyey maantana waa sameeyey khaladku waa isku khalad laakiin adiga xaaladaad ku kala jirtay ayaa kala duwanay marka waalid waa xitaa qorto stresskaaga sida loo maarki karay adloodkaaga goormaad xasiloon tahay goormaad maaragtay ilmaha inta badan goormaad ku qayrisa ayaan ka waran doona insha allah ay ka mid noqonaysaa marka wuxuu u baahan yahay guri xasiloon oo hooyada iyo aabuhu iska warhayaan inuu aad u caqli badan yihiin fursadaha way ka faa'iidaystaan khilaafaadka way ka faa'iidaystaan wax badan bay ogyihiin wax badan waalidkaan ku baraarugsaneen bay ogyihiin boundaries bay leeyahay hooyada iyo aabuhu markay wada joogaan haddii aanay doogta wada saarnayn barbaarinta aanay meel u wada socon fursad fiican bay meesha uga soo baxday way ka faa'iidaystaan aabuhu hadduu maya yidhaahdo hooyada hadday u ogolaanayso hooyada waa u maraya xitaa waxay abuurtaa manaada inay iyaga isboolgaarisa xitaa maha waxay keentaa in hooyada lagu xitaa hadhow uu maaragtay isfahandara ay ka timaado oo hadhow ay iskhilaafaan marka baahiyaha ilmuhu ay qabaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in waalidku guri xasiloon ilmo uu helo asaan tilmaamay hooyga iyo huga ugu wanaagsan ilmuhu heli karayo waxa weye waa hooyo iyo aabba is ixtiraamaya isfahmaya wada koraya ixtiraam iyo jacayl uu ka dhexeeya haddii ay kala tagaan ugu yaraan ilmaha wada ilaashadaya mustaqbalkooda wax badan iyagoo isku hayeen ku ilaawi karaya dhowr qodob baan rabaa inaan markaa tilmaamo xasiloonidaa qayb ka qaadanaya oo ilmuhu aanay u baahnayn toba horeysa xoge ilmuhu waxa uma baahna eedeyn iyo naqdi uma baahna waxaan soo tilmaanay dhowr arrimood ilma u baahan yihiin koowaad waxaynu nidhi in iyaga la fahmay u baahan yihiin talabaad waxaynu nidhi waalidku inuu barbaarinta aqoon u yeeshay u baahan yihiin saddexaad waxaynu nidhi guri xasiloon buu u baahan yahay ilmuhu inuu ku barbaaro shaqada labaadbaa ka imanaysa maxaanay u baahnayn dhowr qodob baa tilmaami doona ay ka mid tahay ilmuhu naqdin iyo eedeyn uma baahna naqdinta iyo eedeyntu waxyaabaha waaweyn ay samayso waxaa ka mid ah inay cilaaqada labada qof ee ka dhexeeya ay gudbiso cid bini aadama oo naqdin iyo eedeyn jecel ma jirto ilaa gurigu barbaarinta waxay ku dhisan tahay saddex tiir ay ku dhisan tahay haween 80% waa cilaaqo waa xidhiidhka haddii waa wanaagsan saddexda tiir oo taana qadul carab waxay ku dhisan tahay cilaaqo
tiirka labaad ee kudhisantay waxaa weeye wax ilmaha uu ka maqan yahay oo sameynay oo dad jeclaan lahayd inuu sameeyo iyo wax uu sameynayo wanaagsan oo doonaysa inaad kusii dhiirageliso labadaba ma iman karayaan ta wanaagsanna ma dhiirageli karaysid tan khaldanna ma sixi karaysid haddaan cilaaqada samaysay haddaan cilaaqo boqolkii sideetan waxay tilmaama culimadu inay tahay barbaarintu waa cilaaqo waa xidhiid abuuri karaya kalsooni ilmaha qalbigiisa markuu kuu furan yahay wax badan baad u sheegi karaysaa laakiin marka uu kaa baqay aanu kuu sheegin karin waxbaada soo arka aanu kaala tashan karin mar walba uu kaa baqay sidii markaynu kusoo barbaarin madaba kamid ah markuu soo socdo waa la wada carari jiri hab noocaasa haddii aad gurigu ku salaysan yahay oo mar walba aad qof wax naqdiya qof wax eedeeya dhalishiisa iyo canaantiisa ay fara badan tahay waa laga carray cid ku imanaysa ولا هذه زوجتها هذه مسألة سيئة ولا ضبطها ولا صاحبها ما تشيل قف بني آدم وتجعلني نخطي هذا وقت بيجعلني نخطي فبيدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه هاجرتي وقفك هناك صار الشيوخ ديتنا مكة هذه واحد قصة يصير مشهد والنبي صلى الله عليه وسلم عليه أنس بن مالك رضي الله عنه زوجة الإمام بالليل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله تبصر ونخد ميلي طبعا كسر لماذا اعتماد الوسط تبجيل مكوين النبي صلى الله عليه وسلم مكوين تطبيق مثل بكاء وحل تمام وقتها ودين كبدا الموتين يشكوني السايكولوجيكال يسبدل كل ما البيولوجيكال يسبدل الهرمونات يسبدلها او ايدنتيتي كرايسيس يسكروا يويد يساعد كل ما يصير وواحد مخدرات تعيب يلا يبطل وواحد عن المقال نبي وقتها صوت المامية وليه طبعا كاسر النبي صلى الله عليه وسلم مع خدمينه وليه واحد خلطي اما عن سميه ما اورن معه waxa u sameysay waxaan sameyn weeyay ma oran maxaa waxa u sameeyay toona waxay waa naqd waa dhayn talabaadna waa lab waxa uu eedeyn bini'aadam marka eedeynta iyo naqdiga ma jecla arutuna ma jecla waxa weeye inaad tilmaanto doonaysa inaad saxdo waxa weeye sheekh tarta tirasiin bisalam walaha na'ina abdullah law kana hadii tukallaha salatu layl عبدالله بن عمر بن وسط لو شيء النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه الليل تكن قال من ليه عبدالله بن عمر ونعمه بدنا لها ونكسنا لها وموسيقى بدنا لها هذو صلاه الليل وتقدر لها النبي قال مهري ست شيرا بعد تقول يوم وياه مهري ست النبي صلى الله عليه وسلم وعد حتى نقديه وعد على عيني مجلس تربيه النبي صلى الله عليه وسلم على اساس وانا واحد كنت سطح علاقه بني ادم scientific لما تدري تان دراسات كلها المامية بنيان كل واحد ربع ماشي تبتيس أي كلمة لسه وقع إذا ما كان نقدسه على بعض الأشياء الموقع واحد بدر شيء كان لحينا وشيء كان ليش واحد بدر ولا أكثر والصمير كوسي دي رجل لين كوسي دي رجل وهي قلبي يسيبها بحين أنت لما أما صدقات الإجادة أو الموضوع بعد وحويه قيلة الموضوع بعد qayladu waxay kamid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ilmaha cilaaqada gudbiya cilaaqada ka soo sheekeynaya boqolkii 80 barbaarinta ku dhisan tahay waxyaabaha gudbiya kamid inuu aad bay bulsho aad u qaliyaan qayladu wax ay faa'iideyso inay wax gudbisaa ma jirto cilaaqada gudbisaa qayladu waxay samaysaa xitaa waxay hagaasisaa sida daraasaadku ay tilmaamayaan korriimada maskaxeed ee carruurta انت النورونز ان كشكل سديدك بليون النورونز اي انت اسكو حلم يكون ولا يكون بالله حيوانات الدجيه حكم اذا قيله إما هو قيديو قلبها حتى أم البضيع هذا الوالد كوصل والمويه كهذا البضيع أنا ما عرفت أنت سليمان إني مغران وهبطها وحي هو استفتى والده وبني آدم سيدي سباء سنتي ما بني بنوين ما كان هو عبصري أو بقيه waxba xitaa ma xintii kare waxba ma spiritual ma fadhiyo xaalada bini'aadamku oo cabsida ku jiro wuxuu galaa xaalad yidhaahdo fight or flight muu buu galaa either ama carab ama sleep ama dagaal saddexdaas xaalado buu galaa fight or flight or freeze marka aad u shimacaan marka ilmaha la taagan yahay ama hooyadu la taagan tahay quraanka ilmaha ma arko marka aad la talinayso aad u sheegayso ilmaha ma arko waxa kaliya waa kaxay u shaa waxa kaliya uu maqlayo
talada wanaagsan ee aad bixinaysid sheegayso ilmaha ma maqlo waxa kaliya maqlo xubin waa wax ka iyo qaylada iyo sidoo ma baxsan lahaa lagu taagay taas ma qaa adiga waxa laga yaabaa wax habayso oo wax badan sheegayso marka qayladu waxay xitaa hor istaagtaa waalida hor istaagtaa xitaa waalidka waxay qaadaa haybada ka qaadaa uma kastoo aad qayliso way kastoo qaylada aad eega inuu ma maqlaan wala dhegeysta ilaa ay soo kacdo lama soo kaco haybada xitaa ka qaadaysa ilmaha ma maqlaan wala ay tiri barnaamij koosa qaadatay barbaarinta waxay ilmaha waxaan qayladeeda la qabsaday hadda markaan hoos ula hadlo way maqlaan way soo qaylaan way qayli la qabsaday waxa kale waxyaalaha kale burburis waxaa ka mid a qudwo wanaagsan ilmaha lama noqon karaysid haddii aad tahay waalid qayliya yaa jecel qof qayliya qof biniaadamku jecel inta markay tilmaamaynin qofka biniaadamku sidiisaba ka cararaa halkaa naftiisu ka imaanayso marka qayladu inay wax burburiso cilaaqada ay burburiso ilmaha kalsoonidiisa ay burburiso nuuriskiisa iyo korriimadiisa maskaxeed xitaa inay halaas u keeni karayso arrimahaas oo dhan bay keentaa marka in waalidku uu ogaado xilliga inta badan qaylada ay dhacdo waxa weeye waa markaad waalidka waraysato waxay ku leeyihiin idinkuna waad fiirin karaysaa qofa muhiim inuu qofku ogaadaa uu yahay waalid qayliya goormay qayladaadu badan tahay goormay cadadaadu badan tahay goormaad ilmahaaga garaacdaa waa xilligeed kulli waa xilli aad straysan tahay xilliyo weyn hooyooyinkiin badan kamid ah waxaa waqtiga ay straysan yihiin waa subaxii marka iskuulka marka la geynaya lasoo kaco waalid waxaa laga yaabaa inay degdeg intay kusoo kac late xilli late soo kacdo waxay tahay inay cunadii marka hal mar wada qabato cunadii inay kariso ilmihii markii uu xidho soo cadida tidhaahdo cuntadii siiso wax walba ay hubisay inay bugtii wataan gaarigii traafikii baa sugaya iskuulkii la geeyo deetan xilligaa karkabada qofka ku jiro wax badan suma fiirsan kara xataa inuu qaylii warmahayo qaylo badan baa marka ilmaha ku dhacaysa weli waqtiyada ugu adag labada waqti xawli labada waqti ay ahayd ilmaha qayla iyo garaac iyo arrimahaas oo dhan ay maahayd in maaragta laga ilaaliyo waa xilliga wax baranayaan iskuulka aadaya iyo xilliga seexanaya ilmuhu iskuuldo inay ku socdaan iyagoo ooyay waa xilligii jacayl iyo naxariis iyo ismacasalaamayn iyo isu ducayn lagu seexan lahaa subax marka iskuulka aadayna isagoo la diyaariyey oo han ahaan iyo physical ahaan iyo psychological ahaan iyo emotion ahaan intaba diyaarsan in iskuulka tago waa waxbarasho u socda laakiin labada waqti ee ugu dhibka badan ilmaha lagu qayliyo waa labada waqti idan waalidku inuu ka ogaado goormaad horta qayleysaa talabaad wax yar oo aad samayso ood ka bedesho rutiinkaaga ayaa wax weyn kaa caawin karaya maxay haddaad soo kici jirtay toddobada ilmaha iskuulka sideed degan saacadda aad dhihi jirtay wax walba ka gaarsiin saacad ka hor soo kac saacad ka horna seexo haddii xitaa dil kugu yar saacad ka hor seexo saacad ka horna soo kac isbeddel weyn baa gudaha ka arkaysaa xitaa cilaaqada adiga carruurtiina ka dhexaysa ayaad ka arkaysaa ta saddexaad haddaad aragto inaad straysan tahay oo aad xamaasadaadu ay kacsan tahay gudahaaga inta badan biniaadamku marka uu straysan yahay oo emotionskiisa iyo kuwa taba weliba ay kacsan yihiin waa sida meel hara biya ama webi biyuhu markay laaqan yihiin biyaha fadhiya dee xitaa dahmada ku inta ma arki karaysid qofka biniaadamkuna marka uu straysan yahay uu karkamaysan yahay wax badan waa soo fiirsan karay xitaa dhaqankiisa uma fiirsan karay dhibta uu geysanayo iyo dheefta uu keenayo midna ma arki karay marka idan waxyaabaha wanaagsan ee la sameeyo maanta qolyahan iyo bugaagtan iyo aqoontan ka baran waxaa ka mid ah inuu qofku hawo qaato neef inuu qaato neeftu waxay ka dhigan tahay sideedaba qofku markuu karkamaysan yahay oo xaalad stress ku jiro karkaba waxaa loo adeegsanaya stressku waxaa weeye habka uu jidhku uga falceliyo markastuu culays la soo dirso culayskaa wuxuu noqon karaya libaax maskaxdu ma kala saarto libaax inuu hortaagan yahay iyo arrimo yaroo isku biirdiirsaday oo abuweel ku noqday iyo balan yaroo ka daahsan yahay ma kala garanayso same process bay maraysaa oo jidhkan beecaamadii heeganka gelinayay iyo qofka isku diyaarinayay same process bay maraysaa beecaamadu sii diiraysa hadduu libaax taagan yahay iyo haddii uu dab dhacayo iyo haddii la socdo inuu talagalay jidhkeena wuxuu diyaariya hab heegana oo sida debdemiska hadda guryaha inta badan waxaa ku jira markuu dab dhaco meelo biyo sii daya ayaa jira waa diyaar bay kusii yihiin guryaha garanayo guryaha inta badan leeyahay xagga waa leedahay heegan wey debdemisku hadda jira waa diyaar waa dadka meelahan departmentiyada dowladda meelaha ugu degdega badan ee heegan ku jira had iyo jeer diyaarka onkoolka weyn oo dab dhaco horga gara jidhkeena ilaah subxana watacaala sidaas oo diyaariya marka ay khatar inala soo wajahdo baqdin ha noqoto cabsi wax waxay doona ha noqoto marka ayna soo wajahdo jidhku isla markiiba heegan buu galaa hormoonuu sii daaya uu qofka siinaya energy
يفيجنان وكبح سكر هدي مدير لوسيتو هدي ودب دعيو هدي لباحر تانية لكن مسكح إنه يعني حيوان فائدة تعالى وقت ما تعلم الله لكن أنت بدل واحد إن ندرس إن نسوي درسة ستريس كي كبادر ممكن معها لباحر معها ضبين كعرين معها مدير نور تانية يعني مية كمنوري لكن حيوان وحولا سكري جاري وحالات يتشكى مراخ وينسو درسية وظلماء مكتا حينو وحولا قفك اسكو بيرسد خويدا انت حولا يقول له يالا اسكو كلا دوري ما لغا سو خاو خيلغا marka shirka waxay bugay xaruso socda soo inta soo lagu oramaya faa'iidada ay leedahay waxa la yiraahdo neefsashada qofku uu hawo qaato hawada qofka uu qaadanayo waxay uga dhigan tahay inta badan qofku marka uu xaalada badinta ku jiro ama heeganka uu ku jiro neef qaadashadiisa iyo hawo qaadashadiisa waa shaal ma hajib maskaxdeenu tamarteenu badan ka mid maskaxdeenu waxay ku shaqeysaa boqolkiiba 20 waxa kamid ah waa hawada weeyaan iyo tamarteenu qaadada maskaxdeena qaadata iyadana marka aad hawo qaadato qofku waxay ka dhigan tahay biyi ay had ka wadameynay ee laaqna oo kala digay marka aad aragto inaad kacsan tahay oo aad careysan tahay oo aad karkabaysan tahay isku day inaad 2 daqiiqo meel qaato time out qaado ma time out baa siyaasadda marka kala dira time out kamid la mid qaado سنة قام من يقول حلوة لما قال أنا طمحي هذا تاجد هاي فريسو ده فريدين الساحة سمع تايم القام قص عيد سميسو وكوسا مقارنة وين بح هوا قام ديب بريد 6 سكن 10 سكن شيء 6 سكن مسيدة 6 شهر 10 شهر ما كان سميسو ودقيسة هوا لو حكيت يا تجيك وحب شيء زواج كلامها ودردب سكيوري حب شيء سحارة ودقيتها dab ma jiro libax laga carnay ma jiro qof mid wato iyo qof qoli loo taagan ma jiro xaalad waa caadi waa habka marka jirka loogu sheego dareenka marka waxaan ka warramayaa leeyahay qayladu waa dabiici way maraysaa weliba bulsho qaylo badan markaynu nahay oo reer guuraaya qayladu waxaan dependent ku ahayn weeyaan oo qolyaha beeraleyda interbalgisku way ka warramayaan qolyaha beeraleyda iyo qolyaha xoolo raacatada isku sixtaa u nahda qolada beeraleyda tartiib bay u sheekaystaan uma baahna laakiin kan raacatada dependency ku khasbaya maruu xoolihii heesayo maruu qaylinayo maruu maaragtay cod hadduu ku yimaado cid u qayshanayo dependency ku khasbaya idan marka qaylada meelahay naga soo raacday waa halka inta badan waxaa la yihahdaa qofku haddii hooyaaba qayliya hooyaaba qayliya uu ku barbaaro 9% waxay u badan tahay inuu isna qayliyo وقف خيليه وخيليه خيل كم إذا وحوي ونروي لكن واحد أنت بدل تريجر جريء كعيا وحوي واحد حلي المكركب يسمى وقف من وفير صوب وقت يتبع الكركبة ولا يتفاضل وقرن بحاك عيا وحليه إنه والد وقعاء ويوم اللي بقى يكعبه وقت كمرة وقت اللي كعجرتي سيقول عشان وقت يكون ديار بروي بكريسة وقت كان يكون ديار كريسة سيدو كان هذا عريسة طار عرفته إنه قالته بالرفيع قالته نفتح على قالته waxyaabaha marka aad kula tacaali karaysaa bay ka mid tahay waxaa ka mid ah waxyaabaha ilmaha u baahnayn guulka faraha badan inaad mar waliba ilmaha ku baqigeliso amaal waha yimaado hooyada maaragtay macalinka waa inoo macalinka haddaan macalinka kuu sheegi haddaan maaba kuu sheegi guulguulka faraha badan ilmaha lagu gulguulo ee la baqigeliyo kalsoonidiisa ay gulgeysaa sideedaba ilmaha waxyaabaha ereyada inta badan ka sheekeynayo naqdinta qaylada dhowr qodob oo tilmaami doono guulguulka intuba waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofka nafsi ahaan u gudbiya si kastoo adigu aad ugu dadaalayso si kastoo aad ugu shaqaynayso si kastoo mustaqbalkiisa aad uga fikerayso ka waran haddii adigu aad tahay sida aad ula macaamilayso adigu aad burburinayso ka waran loodan baa wuxuu lahaa inkastuu bal qaba uu soo damu bukoon maayo oo qalbigii burweyna la dhacaa soo burburi maayo yani si kastoo adigu aad ugu dadaalayso ilmaha badan qaylada iyo guulguulkan iyo hadallada aad ku celcelinayso ay dhaawacayaan wax badan oo kale oo waxaa laga yaabaa ereyada aad ku leedahay inay ku noqoto uu u babacdhigi kari waayo nolosha iyo turturooyinkeeda iyo turxaanteeda uu u babacdhigi kari waayo dhexkaas marka ilmaha inuu ku guulguulo waalidkiisa aabihii uu marka uu yimaado uu ku carari lahaa macallinkii qur-aankii maaragtay barayay lagu guulguulo aad bay khabu tahay in macalinka lagu baqageliyo looga dhigo libaax meel ku sugaya in looga dhigo halkii raxmad iyo wanaag loo muujin lahaa ilahi subxaana watacaala qur-aanka markuu ka warramayey iyo barashadii dadka inuu baray magacyadiisa aadka u tirada badan
إنه سلاشين سلام كانوا كنا لكن كثير من الجمالات كمخلوقات كربي لما طلع المرعي يسوي ليه أنت ما تصبح صايع يكون أمانة أنت صنع الله سبحانه وتعالى وقدرت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وهو ضرني المضحة الماميلي قفك سيدي سبا وحا براني عدة بريسة معانك هو سامين وين وحا براني كيشا سيكولوجيا العيد هذا مادة أبنى عبتها وحي أبضتها معانك كوه ريا كوه لكي إنه ها معاني وجهي سؤال فرنين هم معاني سؤونكو ماركت أدنى عبيسانيسو كوه ولذلك حتى أنا أديك سبا دولة حياة الدنيا كان برا دولة كعام وقالوا حالة الماما الماء مدارستا التي سوق عليه ومشي كريسات صحيح كريسات وحاله سميها معانك مادة كعان كديجي معانك بيسمى طاي حرام قرب الملكية معانك مادة عربية يدين تنيجيا معانك سيقول مارت ورفع صار واحد قاسم الملكية واحد بلد نعسيني أقول سيدي سبب بيادك واحد نعبيها وكعرة أهم كوجهنا sideedaba waxbarashadu wuxuu baahan yahay macalinka cidda waxbaraysa oo cidna xariis leh noqoto sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka uu bilaabayo ar-rahmaan 'allama al-qur'aan magaciisa wanaagsan uu ka dooranayo naxariista uu ka dooranayo ka war hadii waalidkii uu macalinkii dhamaayo qur'aanka wuxuu ugu wanaagsanaa uu maan baranay macalinkii baad ku guuleyso ku baqdayso ana khatar weyn weeyaan idan guulka arrimo badan uu keenaa xataa in ilmaha wax baran kari waayo waalidkiisi aabihii xitaa si kala tusawirto ka boqo biri kama la tashan waayo inaad kalsoonidiisii burburiso waxyaaba badan bay keentaa waxyaabaha sidoo kale aan ilmaha u baahnayn cibaadada la burburiya nafahaan u burburiya ka mid barbardhiga inta badan waalidku aad buu sameeya mararka qaarkood waalidku waxaad moodaa guulka iyo barbardhiga كل يوم وحقول نفسه كل يوم تنعس باطل كم باطل والكفاءة عاصية وسمينية إذا قلت باش هو نفسه لكن ما أصلي ما يسمع أبغى الناس يقولوا لي جلسة كارثة يقولوا لي جلسة واحد كلمة استدبية وحقول إنه هو لم يصبر واحد كلمة هيستدبي كل يوم كلمة هيستدبي تاي طق باطل نعس باطل استدبي محل فاعل واحد يسميني يسميه ويروح كده يستدبي تاي من الناس لكن أصلي ما يسمع إلا ما كان المكان مرة دكتور كرزوني زي هوس بيسام هاي وحاول إن واحد بدو بعدين كلمة كرزوني لا بيموت وحاول ما تقول قف بنيان دوني وقطه كرزوني بيموت إنه سوق صناعة وواحد وقف كان يموت إذا ما كان مرة وقف كم ولا تنام مرة دكتور مش كل يوم يعني هل يا كلوك يو هذا ترتسيسو وحكوا جيت كل كلام أما بسبب جيل كان سنة ترتيسيسو الواحد ما ترتبي كايا بدو بير كل رأي جا من نبض كل رأي من نجيل كل رأي صح المهم أنكم مدام الصوت المالي كردوي أو حتى ما هو بتاع كردوته ومالي كيسين كردوته أو إنترستيج كردوية كون هذا بدو بات يعني كان حسابته كل أحسن حال حسابته كل أحسن بريسة واحد بدن ومعنويات كيساي بريسة سلوا كله ممكن ولاديين عداوة يحقد يقرب من الحكتة المرة ما نبغى نحكي إذا إن خرج وقري يدبر وقع مسمع وحيوان بالبيئة نفسها ما بالبيئة أي كم خرج وقري يدبر وقع مسمع أما لو كنت يدور بحال الله سيد النوع كان ورجوع كان هذا عشان كسر بيقول بس حاجة خرج وقري يدبر وقع مسمع ما مين المشيك أنا ما أعرف مسمع وحصل هذا الوقت كان الماء وحنوك قاضنا يا kuwa yaakaya khalkiisu ku garanaya waxaan ku saxaya laakiin mashiinka macnaha samaysanaya waa mashiinka waa waxbadan buu nolosha soo joogo waxbadan buu ogi ilmaha laakiin siduu wax u macnaysanaya uu ogi sidii loo khad in ilmaha laga aamuso muddo dheer khad u sameeyay khadka cilaaji dad waqtigaan cilaaji karin waa soo noqonaya لكن برنسي إن هذا الموضوع أمسنا يدخل كم غيرتي قبل كوي ودفلت وحالة كبيرة لكن أنت وجري يعني خلوا كوي ويوم كيسميه وأمسنا مدبر خلوا غيرتي أما الحق الله
sida qadoo kale muddo kale uu weydiiyo waxyaabaa aan qaybta kusoo gabagabeynaya waxa weye ereyada taban ereyada in ka sheekeyn nacas baa tahay dabad baa tahay fulay baa tahay qolada marka waalidka laga yaaba inay u arkaan inay maan ku dhiirigeliyaan waxyaabaha imaana faanu gudbiya kamid waxyaabaha u diida ku abuura seeds miro yar oo maskaxdiisa ku abuuraya oo beri ku noqon karaya geed weyn oo waxaa ka waayo inuu silsilado ku xidha oo ku keena mararka qaarkood inuu u babacdhigi kara waayo nolosha turturooyinkeeda iyo turxaadteeda iyo caqabaadkeeda caqabad weyn ku noqda ayaa laga yaabaa inay ku noqoto ereyada xisaabin maa qumariin bay ka darayay qumariin bay ka darayay waxaan kusoo talagalay inaan powerpoint isticmaalo si waxaa weeye kolay powerpoint maamulka loo tegi doona inuu arko kii videoyada musaakibisa wadaan doonayna so ereyadu awood weyn baa ku jirta salaad calawi waa tuu lahaa afku wuxuu la og yahay magariga xawda kaa jira erey saameyn weyn buu leeyahay ereyada baa oranaysaa laga yaabaa maanta inaad leedahay innaga kamidada dib ugu laabata macalimiintiidii ereyada waalidkeeda ama adeeradii inay kusoo yihaadeen oo ilaa inta hadda idinku soo gabgabaa jira saameyn weyn bay leedahay marka ereyada taban ilmaha lagu oranayo in laga ilaaliyo qofku lagu ogaan kara hadee arti markii ladeeda ka sheekeysanayna ah haddaan adiga ogaas ku lahay kakawooyinkan iyo cadhadaada iyo hileelada kacsantaha iyo hileelada haddaan wax badan aan leedahay wax badan aad naftaada muraaqabeynaya isu fiirsashadahay way adkaanaysaa in erayadan aad ku qawlayso in maaragtay aad u fiirsan karayso khiib waxaan kusoo gunaanadayaa rabo inaan dheereeyo dhowr qodob baan rabaa inaan kusoo gunaanado kow oo qaar ka mida noqon karayo khulaasaynta mawduuc maanta aynu soo tilmaameynay inta aadan toosin ilmahaaga isku day inuu horta toosiso xiriirka iyaga wiilkeeda ka dhexeey waayo waxaynu tilmaanay 80% barbaarinta waa xiriir cilaaqadaha haddaad loo wanaajin oo mar walba aad ku qaybinayso mar walba aad garaacayso mar walba aad daqtinayso wax walba toosin karaysa isku day marka inta aadan ilmahaaga aadan toosin horta xiriirka iyo cilaaqada inaad wanaajiso in aad ka fadhici karayso laakiin waa wadooda mid kamida wadooyinka keliya ee barbaarintu ay ku saxnaan karayso waa wadada mid kamida wadooyinka keliya ee ilmaha kugu fahmi karaya wax kuugu sheegi karaya kugula saaxiibi karaya ilmaha marka isagoo filanaya oo khalad galay oo filanaya inaad garaacayso haddii aad intaad soo dhoweyso naarta geliso ood ku tiraado marba mahadsamay dareenteeda muqaada hawl marba mahadsamay filanaya haddii aad garaacayso laakiin laabtan gelisi darigiisa waa isbedel waxaa markaa sheegtay ma ilaawey laakiin qubqa oo haday noqoto in wax lagu soxo waxbaa baxumaanaya wax sii saxmaya way yaraanaya arrinta labaad waxa weeye muhiimadu ma aha inaad ubadkaaga wax uga tagto waxaa muhiimka waxa weeye inaad wax kaga dhex tagto wax kastoo looga tago haddaadan wax wanaagsan aad kaga dhex tegin qayb haddaadan kaga dhex tegin aqoon haddaadan kaga dhex tegin akhlaaq haddaadan kaga dhex tegin diin haddaadan barin mafaahiimtiisa haddaadan sixin qof tayaysan haddaadan ka dhigin ood qolay ku koriso laakiin aadan qofka barbaadin wax kastoo loo tagto meel ka badan isagaa burburiyay laakiin haddaad qof soo saarto oo akhlaaqyaadkiisa iyo qiyamkiisa iyo aqoontiisa iyo xirfadihiisa iyo nolosha siduu la fargeli lahaa cilaaqada rabbigiisa aada xoojiso nolosha isagaa wax ka soo saaranay saxaabadu markay imanayeen badanoo ka mida muhaajiriina markay madiina imanayeen waxay haysteen mara cid yaqaaneen mara adaa nolosha meelbay ka soo baxeen rag tujaaraa soo baxay cabdiraxmaan ibn cawf tanuuni cala suuq suuqa tusriye wuxuu haystay mara markii qofku hadduu leeyahay rabbigiisu cilaaqada ay dhisan tahay rabbigiisu tala saaran uu ku kalsoon yahay isagana aad dhisto aqoon iyo waxyadada qiyam iyo akhlaaqiyaad iyo diin iyo aqoon aad ku hubayso isagaa wax badan samaysanaya in badan anaga naga mida mashaakisheena haysta waxa weeye ilmaha waxay isku dayaa inaan wax walba u diyaarino wax walba inaan u diyaarino ilma wax walba inaan u diyaariso ma baha iyadaba sida wax u diyaar lahay iyadaba sida wax u noqon lahay haddaan adigu waalidka waxay yidhahdaan ilmaha isma dirayo maxaa sameeya waa 18 jir waa 18 jir laakiin markaad waraysato sii ogaato waxaad ogaanaysaa inaan waxba uusan jirin mas-uuliyad ba saari jirin
qofka markay soo maalin walba cuntada loo waxeeyo oo marka loo maydho oo gobasha loo hagaajiyo oo waxba aan loo dhisa sidaa markuu ku weynaa isagaa silay wadatay ilmaha dhulkan aan ku noolaa mas-uuliyadda wadaka subax ilmaha wiila shaakisha wacay intiina iskuulka ilmaha xanaanta geysa markaa karaysa 3 jir markuu xitaa u yahay waa loo dhisaa iskuulkaa keenaysa boorsada isaga iska siibaya meesha loogu talagalay buu soo dhigaya jaakadu iska siibaya meesha loogu talagalay buu soo dhigaya hadda marka la gaaro cunada marka la cunayo isagaa soo qaadanaya saxankiisa farihiisu soo dhaqanaya marka la gaaro xiliyada waa la siixiyaa anaga xaggiina ma garanayo dumarka kalena waa la siixiyaa sababta qaafta la siixiyaa anagaa la yidhahda isagaa maashiisa soo qaadanaya isagaa cadayanaya ilmaha yara soomaaliya marka u fiirsata marka noloshaa ku nool aad u dawaqsanya halkii marka uu joogana isagaa wax walba laga rabaa inuu qabto guriga markuu ka imanaya waxba waa soo qabtay ayaga waa loo bogsiyey cuntadii baa loo wargeliyey markii baa loo xiray boosadii baa loo geliyey gaari xitaa waa la saaraya wax walba waa la soo qabtay halkan markuu yimaadana wax walba isagaa rabaa inuu qabto inuu qalin ku koy waxaa keenaya mara fara badan waxa weeye in waalidku uu horta dareemo ilmaha in mas-uuliyadda ay tahay inaad barto waxaa la baran karayo weyaan cirka ilmaha mas-uuliyadda wama imanayso waa inaad barto mas-uuliyadda wax la baran karayo waa inaad mas-uuliyaddaas barto marka ilmaha mas-uuliyadda la baro habka iyagu wax usoo saaran lahaayeen la baro aad bay muhiim u tahay taa arrinta saddexaad waxa weeye dulqaad buu barbaarinta u baahan tahay dulqaad bay barbaarinta u baahan tahay marar fara badan wax badan baa la tacaalaysaa wax badan baa la dadaalaysaa inkula khayr wax badan baa la dadaalaysaa waxaa laga yaabaa inaad natiijada wax badan aadan arag barbaarintu waa sida geedka baabuug oo kale la yidhahda geedka baabuug ma maqshay geedka baabuuga chinese waxaa la yidhi geed baabuug la yidhahdaa jira ninka markuu qofka iskala geedka beeraya waxaa la yidhahdaa 5 sane ugu horeysa cimriga geedka 5 sano dhan qofka beeraya uu qasbay 5 sano uu beero toddobaad gudaheeda ayuu geedku wuxuu ku kacaa 7 feet ayuu ku kacaa waxaa isweydaa marka geedka ma 5 sano magaluud buu geedkaa 7 feet kor u kacay mise 5 sano iyo 2 toddobaad buu ku kacay bimacnaa waxaan uga jeedaa barbaarintu waa saas oo kale marar fara badan waxaa laga yaabaa hawliin oo juhdi fara badan wadaadku aad buu dadaalaya dadaalkaa faraha waxaa laga yaabaa marar fara badan in aad natiijo ugu soo yeelbiyo weydo sida runtiina wax badan noqon kari waaya laakiin waa ilaah subxaana watacaala ma dayacayo dadaalkaaga ma dayacayo dulqaad bayse u baahan tahay sidoo kale aqoon bay u baahan tahay bani aadamku sidiisa maadaama u garanayn waxaan ilmahan wax sababta uu sida u sameynaya dana keli uma dulqaadan karo bani aadamku sidiisaba uma dulqaato waxaanu garanayn wax sababaya haddaanu garanayn wax sababaya uma dulqaadan karo khayr markuu nabi muuse calayhi salaam markii uu raacay ilahiri raac ay israaceen markii wiilkeeda uu diray doonidii la saaray lacanaanta lagu saaray uu jabiyey qoladii soo dhaway weeye darbigu muuse ula yaabana waxaan u sameynaya wuu dulqaadan mar walbaad ku lahaa ka halaya kulama sii socon karayo waan u garanaya sababta u sameynayo khayr aada watuu khayr marka dabaleeya fakayfa tasbiru bilkhubra waxaa lagu wanaagsan waa lagu dulqaadan karaysa haddaadan garanaynin muu markay dabajir yihiin dabajir markay yihiin inay dhagaadag yihiin inaanay wax maqliyaan garanay uma dulqaadan karaysa inagu waa cali waxba maqlayo waa laka waa sida ballan haddaadan garanayn muu markaa fariintama jir ilaa iyo 20 sano inta u dhaxaysa inuu psychological isbedelayo nafsiyaad isbedelayo oo biological ahaan isbedelayo oo wax badan oo xilligaa marxalada lagu gudbiyay inay tahay oo normal inay tahay oo dabiici inay tahay haddaadan fahansanin aad bay u adkaanaysa inaad u dulqaadatid aad bay ugu adkaanaysaa marka in aqoon waa yeesho biniaadamku haddaan waxa aad garanayn waxa uu qabanaya shaqada uu qabanaya aqoon lahayn aad bay ugu adkaanaysaa inuu u dulqaato waxaa kusoo gabagabeynaya dhowr qodob waa ducada aad bay muhiim u tahay waa mid kamid a hubkii adeegsan jireen dadkii saalixiinta ahaa iyo ambiyadii nabiga ibraahim calayhi salaam ilaahi mid ay nasir ayuu lahaa rabbi habli min asaalixiin wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam rabbi ijcalnii muqiima salaati wa min duriyati ducooyinku aad bay muhiim weyn ilmaha loo duceeyo laakiin ducada marar fara badan waxbaa hor istaagi karaya lafteeda hooyooyin aad u duceeya jira aabooyin aad u duceeya jira laakiin ducada waana ducaada jira waa taqaanaa haddii qowlka aad cunayso
يروح ما نطلق ودرس حاراتها يقول كذا الحضرية ما أنت بدأت ساعة سوتشيتو إلى محضرات أملاك نكي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بورسنا رفعتنا يا رب العالمين بحولي ومطعمه حرام ومشربه حرام وقضي بالحرام فأنا يستجاب حمص قضي حرام تأخذ عليه وقال حرام كل أبيه ونوى حرام سيدبك على الله أظن حفر الله يتفكر تاجر بورسه رفعتنا رفعه كله هذا تبي كأنه تاجر حسيت على الله ولا عقلية إلى وفقه عقلية لكن الاهتمام يوقفك وحقول علي وحب علي وعلى ترتيب دعوك بعزة يحتاج بعد بالوحي فكا دعاء الله ويذكر هذه السكر آية مهمة الله إلى سبحانه وتعالى وقرقه أو سفر كان دير النوشة الله يقول بارنس إلى سبحانه وتعالى وعاوية حولي الله به وين لكن سوى كلامه إلا سكتوا تنكر الله دون كل ذلك يا خاتم حيوان حاضر الله يصورها إلا سكيران أخيرا ولد وغيره حيث الماء أدوه نقرأه أدوه نقرأه كأشعار دي داوين الماء أدوه نقرأه أدوه نقرأه كأشعار الماء إن أولد ما تسكو فيرسكو إن أولد ورفلش كيلو إن أولد ما تسكو فيرسكو إن بيسالو فيرسكو سلاسل حكي لها إبراهيم سامي تقول لي أمر أنت هو بدأ يجيب كيس وهذا يلعب أول كيس الداتا وحوصل اسمه تقول شيء مكوية تقول سنة كم سنة ولا سنة بدرسة كم مقصود حاول أنت في وقت تقول وأبي يهودي وياه مرة إبراهيم كم أنا أقول إبراهيم حاجة أكبر خلينا كم أغني لكن كبر إلى كبرات هذه شيء موجود في حياتها هذه شيء كبرات موجود في حياتها إبراهيم في الصغير في الإمكان هي كأول من حركة هذا المسيح سمينا إذا استعمالين تبرك وأبغاك تدعو بقولك السداشة يصدح بكلام الحموية والبارد والمشكلة والمقدرة وحوه جل كلمة ما خصايا إما هي الناس كشقيا هو الذي حاجة هذه الشيء لكن يقول هذا مسوق هذا وين بحركة كراس 24 hours إيه كمسند حالة سريع جديد كان يقول مشاكل سيدا الحالس قعدنا زيادة قانيس أنا ما أصلا سيدا ولذلك ولا معاملس كلكم مكبرين حتى يقول سيدا أنا وحاخر هذا يقول اسمه تكون أنا متكون هذا يقول اسمه شيء ولا يقول شيء وحوي وأدونيس ما بحكي لما أنا أقول لكم غير نظرت أدونيس إنه بشرنا مسؤول بالجبال يا أخي الحياة صراحة بقول حاجة ثانية صاحبنا على بول شقيا يا كبير يا راس صبيات أيوة شقيا هذا بيدرس مايكروسوفت مشاريع تبعيلي هنا من باكستان صاحب واحد ما يشكي إيه ناس بالي ناس وعن عين كلان ما عين كسر بعضها نقطة بينكم أتوا حصل لنا كلان ولا تقولي مقلاشة يرى نشعة وحيث كلاشة وين الوقت تقوم على الموضوع بدو 8 ساعة وحيث مليون ما يسأل عن ناصر مقلاشة طبعا كاسة جيد نما يكوني كرسي نما يكوني ميس نما يكوني هذا ما ينسى وهي ما يعرف مقلاشة كلهم جيد كويس ما دام ولا يكون ما يعرف يدو كرسي كويس يدو كانتر كويس ما يعرف يقول عليك أسوأ في السنة ترى واحد أكيد الناس مالتي أخذ كلام أنا وأخذ كلام يقول واحد أنا أسوأ في السنة أخذ كلام مش على يدي أباي بناك جلس وأنا الآخر يقول ما هو فريستا لكن سوى مربع فريستا بعوانده هو أساسه كان بحية أكو فريستا هو كفرية سيدا أسوأ فريستا يقول أباي لا شيء في المسجد يقول أنا مرة واحد أكيد وحضره كل أخبار ونور شيء كذا إنه أباي بيحكي يعني سكر ذكر مرة المسوح أول أكسن وطبعا نيجاتيف كوي حاليا وحفر بدل أو أتصمم أو خبر الماضي مقارنة ويعني ما سمعنا المسوح أو سمعين حتى سمعين لحين أول أكسن أو الماضي كانت ضيا لحين من وين هو قاعد لحين أجل سيدا مقولش شاير الشعر طبعا كسرنا ولا مقولش متوقع
أي أمبرم ويدي كاش يلا وأبوريني ويد مولين وبود كريس أو نتكون كريس أو جدا كون كريس لا هو أبو لكن ما يمكن ويد كسمة أرام بلاش كم واحد كم حدي عاد يسوحوا أي واحد سمين حيد ونكسر إنه أي كذا تيجي هاي دارجة وهذا سمين وفي بعض السوفيستا ما هو يكون نقول يعني نقول كأنش أشعر إنه ما نقول جزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خير المسلمين. جزاك الله خير بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى أنا يقول لك كلمة دس ولاية